kulan wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya qodobada wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xiisad xoogan oo ka taagan magaalada Laascaanood iyo ciidamada Somaliland oo dad shacab ku toogtay magaalada Laascaanood mid ka mid ah dhalinyarada hormuudka u ahayd kacdoonka magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolada ACC ayaa ciidamada Somaliland ku toogteen magaalada Laascaanood waxaana haatan magaalada Laascaanood ka socda dhaqdhaqaaq xoogan oo shacabku ay rabaan gabi ahaanba in ay ugu hiiliyaan wiilkii dhalinyarada ee lagu dilay bartamaha magaalada Laascaanood dhinaca kaleeto maamulka Somaliland ayaa wado qorshe lagu fashilinayo shirka ka socda magaalada Laascaanood maamulka Musabbixi ayaana in ka badan 10 jeer isku dayay inay fashiliyaan shirka garaadyada ee ka socda magaalada Laascaanood laakiin maamulka Musabbixi kuma guuleysanin isku dayada iyo waliba sidoo kale qorshayaasha guracan ee uu ka wado magaalada Laascaanood ciidamo aad u tiro badan ayuuna soo dhoobay duleedka magaalada Laascaanood si gabi ahaanba uu khalqalgeliyo shacabka iyo waliba isimada ku shirayo magaalada Laascaanood si kastaba shirka oo la filayay in gabi ahaanba natiijada ka soo baxdo ee la isku waafaqay in lagu dhawaaqo shalayto ayaa gabi ahaanba dib loo dhigay ku dhawaaqista shirkaasi ayadoo waliba shacabka iyo waliba isimadu ay bilaabeen abaabul xoogan oo gabi ahaanba ay iskaga dulqaadayaan argagixisada jabhadda Musabbixi dhinaca kale waxaa iyana dhankooda ee faragelin qaawan ku haya xaaladda magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolada ACC madaxweynaha Jabuuti madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo haatan si toos ah ula saftay qadiyada irir Soomaale ee uu wado Musabbixi iyo maamulkiisa dhanka kale maamulka Puntland ayaa gabi ahaanba jawaab kulul ka bixiyay hadalkii Ismaaciil Cumar Geelle ahaa inuu xalinayo xiisada xoogan ee ka taagan gobolada ACC waxaana la filayaa maamulka Puntland iyo waliba dawladda deegaanka Soomaalida inay ku soo biiraan dagaalka ka socda magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba gobolada ACC dhinaca kale waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa mowqif midaysan ka soo saaray xaaladda cakaran ee ka taagan gobolada ACC ayagoo cambaarayna dushooga tuuray maamulka Musabbixi oo ay ku tilmaameen inuu maamul argagixisa oo la mid ah ururka al-shabaab iyo waliba Daesh waxayna arintaasi ugu sababayeen dilalka iyo waliba falalka guracan ee maamulka Somaliland ay ka wadaan dadka aragtidooda midnimada ummadda Soomaaliyeed ku cabirayo dibadbaxyada iyo waliba sidoo kale kulamadana ka wado magaalada Laascaanood waxaan idiin soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay ee gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood oo ciidamada Somaliland ay dilal iyo waliba falal argagixiso ay ka wadaan ayadoo waliba maamulka Somaliland haatan ay qorsheeyeen sidii ay u beegsan lahaayeen haldoorka iyo isimada markaasi ku shirayo magaalada Laascaanood ciidamo aad u tiro badan oo markaasi afka soo xidhay ayaa gabi ahaanba lagu soo daadiyay duleedka magaalada Laascaanood si ay u bilaabaan falal argagixiso waxaana arintan ay daba joogtaa hadalkii Musabbixi ee ahaa in gabi ahaanba waxa ku shiraya magaalada Laascaanood ay yihiin argagixiso qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo faahfaahanayaan halkan idinku soo gudbin doonaa haddii ay tahay markaadii kugu horeysay sii share garee barnaamijka oo la wadaag asxaabtaada kale haddii aad horey noola joogtay waad ku mahadsan tahay daawashadaada halka ka siwo aynu ku bilownay ciidamada maamulka Somaliland ayaa bartamaha magaalada Laascaanood ku toogtay mid ka mid ah dhalinyaradii horwadeenka u ahayd ama halbeegaba u ahayd kacdoonka buluuga ee lagaga dhawaaqay gobolada ACC ciidamada maamulka Somaliland oo marar badan isku dayay sidii ay ku toogan lahaayeen garaadyada iyo isimada ku shareeyo magaalada Laascaanood ayaa xalayto waxa ay toogteen mid ka mid ah dhalinyarada hormuudka u ahayd kacdoonka markaasi lagu cabirayo aragtida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ee ka hirgashay gobolada ACC maamulka Somaliland ee madaxweynaha ka yahay Musabbixi marar badan waxa isku dayeen sidii ay ku fashilin lahaayeen kacdoonka ka dhacay magaalada Laascaanood kaasi oo gabi ahaanba galgalay Somaliland la yagleelay 30 sano ugu dambeysay isla markaana ummadda Soomaaliyeed ugu maaweelinayay inay noqon doonaan dawlad ka madax banaan Soomaalida kale tacdiye badan iyo waliba dilal joogta oo maamulka Musabbixi ay ka wadeen gobolada ACC ayaana keentay in shacabka aragtidooda ay ku cabiraan dibadbaxyo kadibna garaadyada isimada iyo waxgaradku ay isla raacaan in Somaliland aysan ahayn maamul mathali kara kana shaqeyn kara gobolada ACC iyo guud ahaanba gobolada Somaliland waxaana ay shacabka iyo garaadyada isimada waxgaradka iyo aqoonyahanku ay isku raaceen in gabi ahaanba haatan ay tahay xilligii ummadda Soomaaliyeed la midayn lahaa wana arinta keentay in garaadyada iyo isimadu ay
iskugu yimaadaan magaalada laascaanood sidoo kaleetana mowqif midaysan looga soo saaro shirka markaasi halkaa ka socdo. Muuse Biixi oo arrintaasi ka duulaya ayaana ciidamadii ugu tirada badnaa kusoo daabulaya gudaha magaalada laascaanood, waxaana la keenay magaalada duleedkeeda in ka badan 500 oo askari oo indhaha u xidhan yihiin, kuwaasi oo loogu talagalay in ay toogasho iyo weliba falal argagixiso ka bilaabaan gudaha magaalada laascaanood sifa gebi ahaanba shirkani uu fashilmo. sidoo kalena beesha caalamka looga dhaadhiciyo waxa halkaasi ku shiraya inay yihiin Daacish iyo Al-Shabaab. si kastaba isku daya badan oo in ka badan 10 jeer Muuse Biixi uu ka sameeyay gudaha magaalada laascaanood ayaana gebi ahaanba ku soo dhamaaday fashil iyo weliba in istimada iyo garaadyadu ay ka war helaan shirqoolle uu u maleegayo Muuse Biixi ayaana haatan garwaaqsaday in xaaladda kelita lagu xallin karo in kaarayaal iyo weliba sugag lasoo dhoobo duleedka magaalada laascaanood sifa gebi ahaanba loo bilbilo go'aan kasta iyo weliba wax kastoo kasoo baxana looga jaro shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada laascaanood. si kastaba diilka wiilka lagu magacaabo Ahmed Daylos ee markaasi caanka ka ahaa magaalada laascaanood ayaana gebi ahaanba haatan xaaladda jawi cusub u bedelay, iyadoo weliba isimada iyo garaadyadu haatan ay gebi ahaanba ku dhawaaqeen in ay tahay jawaab ee degdega inay shacabka iyo weliba ciidamada SSC ay ka bixiyaan. shalayto iskoormaad ka dhacay duleedka magaalada laascaanood kaasi oo dhexmaray ciidamada SSC iyo jabhadda Muuse Biixi ayaa gebi ahaanba ciidamada waxaa u suurta gashay in ay cagta mariyaan ciidamadii argagixisadaha ee ka socday maamulka Muuse Biixi, kuwaasi oo ku sugnaa duleedka magaalada laascaanood. waxaa laga furtay in ka badan 10 gaari oo kuwa dagaalka iyo weliba sidoo kale cabdibilayaal aad u tiro badan oo markaas ciidamada maamulka Somaliland ay u adeegsanayeen in gebi ahaanba ay ku xasuuqaan shacabka ku dhaqan magaalada laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool. dhinaca kale warar aanu helayna ayaa sheegaya in ciidamada u tiro badan oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ka goostay ciidamada militariga sida gaarka u tababaran Gorgor in ay gaadheen magaalada laascaanood, kuwaasi oo haatan dhanka tababarada iyo howlgelinta dagaalka ka saaciideynaya ciidamada sida gaarka u tababaran ee jabhadda SSC. si kastaba xogaha aanu helayna ayaa tibaaxaya in ciidamada Somaliland ay ku adkaatay gelitaanka magaalada laascaanood, haatana ay isticmaalayaan calooshooda u shaqaystayaal ajaanib iyo weliba sidoo kale iskugu jiro kuwo u dhashay magaalada laascaanood, kuwaasi oo dilal iyo qorshayaal guracan u fulinayo maamulka Somaliland oo markaasi lacag ku siinayo inay toogtaan sidoo kalena ay dilaan halbeega iyo haldoorka ciidamada SSC iyo weliba sidoo kale garaadyada ku shirayo magaalada laascaanood. shirka ka socday magaalada laascaanood waxaa la filayay in gebi ahaanba natiijadiisa kama dhamaysta lagu dhawaaqo shalayto, laakiin isimada iyo garaadka iyo waxgaradka iskugu yimaada magaalada laascaanood waxay isla afgarteen sidii gebi ahaanba ay ku diyaarin laheen hub iyo cudud military oo gebi ahaanba haddii go'aankan ay ku dhawaaqaan sidoo kaleetana maamulka Somaliland ay damcaan inay soo weeraraan magaalada laascaanood sidii ay iskaga difaaci lahayd. waxaana gebi ahaanba beesha dhulbahanta iyo guud ahaanba beelaha markaasi dega gobolada SSC loogu baaqay inay diyaariyaan cudud military oo adag oo ay kaga hortagaan maamulka Muuse Biixi ee khawaarijta. waxaana haatan diyaargarow culus ka socdaa guud ahaanba gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn, kuwaasi oo degaan beela aad u tiro badan oo markaasi ugu tun weyn yihiin beesha dhulbahante ee haatan ku shirayso magaalada laascaanood. dhanka kale beelaha kale ee ayaguna dega goboladaasi ayaa haatan bilaabay abaabul xoogan oo gebi ahaanba iskaga dulqaadayaan kacdoonka jabhadda Muuse Biixi ee xasuuqa ba'an ka wado gobolada SSC. dhinaca kale gobolka Awdal waxaa iyagana ka socda dibadbaxyo waaweyn oo gebi ahaanba lagu taageerayo kacdoonka ka dhanka ah maamulka Somaliland. si kastaba waxaana haatan lagu dhawaaqay jabhad cusub oo la magac baxday Cawaale, taasi oo gebi ahaanba khalkhal gelisay ciidamadii maamulka Somaliland ee ku sugnaa gobolkaasi Awdal. dhinaca kale xiisada ka taagan gobolada SSC waxaa iyaguna haatan si qaawan gacmaha oo la soo galay maamulka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Djibouti oo asagu sheegayba in gebi ahaanba loo daayo arrintan ka socda gobolada SSC, asagoo markaasi ku soo dabaalayo qabiil cusub oo markaasi maalmo ugu dambeysayba la wadwaday oo la magacbaxay Irir Soomaaliya. waxaa soo cusboonaysiiyey madaxweynaha maamulka Somaliland oo taageero rabay inuu ka helo dowladda federaalka Soomaaliya, kaasi oo ka dhaadhiciyay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud gebi ahaanba uu siiyo taageerada ku filan in maamulka Somaliland ay noqdaan dal madax bannaan. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele madaxweynaha dalka Djibouti ayaana falal guracan waxa uu ka wadaa guud ahaanba
gobolada SCC asagoo ciidamo aad u tiro badan keenay magaalada Hargeysa kuwaasi oo la rabo in lagu gumaado shacabka ku dhaqan gobolada SCC goboleedka IGAD oo arintaasi ka war helayna waxay qaadeen tallaabooyin adag oo iga soo horjeedaan tallaabada markaasi Muuse Biixi iyo waliba Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha dalka Soomaaliya ay ka wadaan gobolada SCC ayagoo ugu baaqay haddii arintaasi ay dhacdo inay isticmaalin doonaan awood ka baxsan la saddexdaasi dowladood oo iga soo jeedaan in gabi ahaanba midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo waddanka Soomaaliya uu yahay mid mida sidoo kalena madaxweyne Soomaaliyeed uusan aqoonsan karin maamulka Soomaaliland isku dayadaasi uu wado Ismaaciil Cumar Geelle waxa sidoo kale ka hor imaaday shacabka iyo isimada ku shareeyay magaalada Laascaanood kuwaasi oo ku tilmaamay inay arintan tahay mid gabi ahaanba la rabo in la iska horgeeyo beelaha daarood iyo waliba beesha cusub ee Erir Soomaali dhanka kale madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa isaguna arintan ka dhiidiyay waxaana uu sheegay hadiiba ay dhacdo in maamulka Somaliland iyo waliba dawladda Djibouti ay arintan isku kaashadaan sidii loo xasuuqi lahaa dadkaasi in asaguna uu gabi ahaanba qaadi doono tallaabooyin arintaasi uga jawaab uga dhigayo isagoo dhanka kalena amray in ciidamada PSF-ta ay gaaraan furimaha hore ee dagaalka si gabi ahaanba loo badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed ee lagu xasuuqayo gobolada SCC waxa ciidamadii ugu tirada badnaa la keenay magaalada Tukarraq halkaasi oo ciidamo Somaliland ay ku sugnaayeen gabi ahaanba waxa haatan si toos ah magaalada Tukarraq uga talinayo ciidamada sida gaarka u tababaran ee PSF kuwaasi oo loogu talagalay in ay dharbaaxa kulul gaarsiiyaan ciidamada jabhadda SN dhinaca kale madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa isaguna war ka soo saaray xaaladda guracan ee maamulka Somaliland ay ka wadaan deegaanada gobolada SCC asagoo ugu baaqay in Somaliland ay dadkaasi ee gabi ahaanba danahooda iyo aayahooda ka tashanayo aysan faragelin haddii ay faragelintaasi wadana uu qaadi doono tallaabooyinka markaasi looga baahan yahay inuu qaado madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ciidamada u tiro badan oo ka socdo dawladda deegaanka Soomaalida ayaana la keenay xuduudda dheer ee maamulka Somaliland iyo waliba gobolada SCC iyo sidoo kale dawladda deegaanka Soomaalida ay wadaagaan arintan ayaana jawaab u ah hadalkii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ahaa in gabi ahaanba loo daayo xaaladda cakaran ee ka taagan gobolada SCC shacabka iyo waxgaradka isimaduna arintaasi waxay ku sheegeen inay tahay mid qabyaaladaysan sidoo kale tana Muuse Biixi iyo Ismaaciil Cumar Geelle ay yihiin laba nin oo walaala sidoo kale tana habro wadaaga taladuna ay gabi ahaanba tahay mid markaasi ku soo dhamaan doonto in Muuse Biixi waxa uu rabo gabi ahaanba laga sameeyo gobolada SCC arintaasina way diideen shacabku waana arinta keentay in madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida iyo waliba sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland ay isku aragti ka noqdaan xiisadda xoogan ee ka taagan gobolada SCC dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland iyo waliba sidoo kale Siciid Cabdullaahi Deni oo maalmihii ugu dambeysay xurguf siyaasadeed ay soo kala dhaxgashay ayaa waxaa midaysay qadiyada ka socoto gobolada SCC iyadoo la filayo inay shir degdeg ah ku yeeshaan magaalada Nairobi shirkaasi oo looga arinsanayo xaaladda cakaran ee ka taagan gobolada SCC waxaana la filayaa in tallaabo military dhawaan ay qaadi doonaan madaxweynaha Jubbaland dawladda deegaanka Soomaalida iyo waliba madaxweynaha maamulka Puntland dhinaca kale waxaa iyagana hanjabaad kula diray maamulka Koonfur Galbeed oo maalmihii ugu dambeysayba arintaas Somaliland ku tilmaamayay mid markaasi ah argagixiso iyo waliba sidoo kale inay shabaab ayaguna ay ku taageerayaan in ay Soomaaliya qaraxyo iyo waliba weeraro ay ka geystaan maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna la filayaa in ay arintan qadiyada gobolada SCC ay la mowqif noqdaan maamulka Jubbaland iyo waliba sidoo kale maamulka Puntland waxyaabaha ka soo korana qaybaha dambe wararkeena ayaan idinku soo gudbin doonaa tan iyo kulantay dambana waxaan idinka tagay sidaas iyo amaana Allah